بسم الله الرحمن الرحيم. وبين نستعين على ولد يا رب صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين. وحان شركان جرايد وجهين وتعسين وأنا لا إنا لله وإنا إليه راجعون. guud dadka Soomaaliyeed dhalinyarada ahaa ee ku qarqoomay badda u dhaxaysa Masar iyo Talyaaniga iyagoo tahriib ah oo nolol iyo shaqo raadis ah xaqiiqa ahaan waa arrin muusif oo aad looga xumaado. maalin walba dhalinyaradeenu waxna inay xabadda ku dhamaadaan waxna ay badda ku la tagto وأنما ومال نرشي سايكسو أوروت وحد مودا إن أرنتها ستهاي من لقى حماضة منها وحمر كلي دعي أو حصان غلقانية وأنا قلت عسيني هلدي يا قراودي يا شعب كصوماليات بجودان لبعضلاس قاعدي آد كوفوشهم نبكة أنا هاي عقاب سماوي أو حنا عن جواه أنا كوكان صنع وأحمر والبردعاء وأنا لجوان الإسكوان سنين لجوان قاعدين لجوع قاعدين ما كان تعسيداس كسوق بكذب محا أبوريا إن حالة أنت على عضو هذانا لجوان سمايا ومر البعيد عضو waxaan isleeyahay waxaa dhacaya waxyaalaha la xallin karayo waxyaalaha xal dowladda Soomaaliyeed dowlad goboleedyada beesha caalamka haddii la isugu tago waa xal wax laga gaari karayo mid waa dhibaato oo ninka dhibkaa ka baxay isagii oo noloshu ku jira iyo xaaladdu ku jira wuxuu la hadlayaa maalin Facebook intuu ku jiro wuxuu ka hadlayaa wanaagga uu gaaray iyo guri ninka leeyahay intuu hoostiisa soo sawiro sidana ana haye meeshana fiican iyo waa wax propaganda ah horta dadka dhibaato loogu hayo intii kala aanoo isleeyahay alala meesha bir soo sawiray nin isagii bashiitan oo laga yaabo inuu nasaaka quraacanin guri nin kale leeyahay intuu isku soo sawiro inuu ugu soo faano nool buu yiraahdo khatartii adigu martay nool waxa soo maro waa dhibaatada ka mid tahay magafo waxa la yiraahdo oo lacagta u fudaydiya dadka marka horeba oo oranaya hayo waa loo qaadi markii meel la geeyo cirkaadha dhulkaadha marka dambe la yiraahdo lacagta inta la reerkiina iska keenay inta loo soo sawiro inta keenay laga soo qaylisiyo oo maalin walba nin intuu ku yimaado ku leeyahay magafa Liibiya ku haysta ilmahayge kale wax kala qabo laguma iskuma waansanaya dhalinyarada way ku sii socotaa magafihiisina xalkiisi waa lagu wada waana dad Soomaaliya waxa dilaalka ka waxaan shaqeynay waana la qaban karaa lamana qabanayo qodobka ugu daran waxa weeyaan dadkan dhalinyaradu waxbay baratay wadankay wax ku baratay iskuulay kaga baxeen jaamacadii wadanka jira ku baxeen shaqay u baahdeen shaqadii ma helayaan ma jirto shaqadii waxa inta badan qaata hay'adihii imanaya shaqada bixinaya shaqooyinka bixiyaan dad bay dibadda uga yeedhaan waxa imtixaanada dibadda laga soo helaa oo shaqada inta badan luqada iyo intii wax lagu xidhay waa laga dhalinyarada inay iyagoo shaqadii garanaya ayna waxba shaqadii helin shaqaale qiimo qaali lagu keenayo dibadda lagu waxaynayo shaqo abuur ma jiro maanta hadda Soomaaliya marka ka soo qadna xamar baysaska ku yaala garoonka diyaaradaha konteenarada isdaba safan inta hay'adooda ka shaqeynaysa inta qof soo shaqo tagaysa diyaaradaha transportiga maalmo Nairobi shaqada waadiga ka soo noqon dadka shaqada loo qaaday lagu soo celinayo kharashka milyan iska leeyahay Soomaaliya lagu bixinayaa waa maxaa kalifay ma Soomaalida laga waayo dhalinyaradii wax iyaga shaqadii intii loo abuuro shaqadii qabto gudaha ay ka shaqeeyaan qaabka ku waxayaan waxaan isleeyahay dawladuna ka hadasho oo iyada laftirkeedu mas'uuliyadda ummadan ka saaran dawladda federaalka ha garato mas'uuliyadda ka saaran shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada hal la qabto dadka dacayada iyo propagandada oo sameynaya magafayaasha la yiraahdo hana loo abuuro shaqooyin dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka oo shaqooyin intii loo abuuro bal hal la dhimo dadka dibadda laga soo qaadanayo iyo dadka ajnabiga faraha badan ee la shaqaalaysiinayay shaqada qofka dhalinyarada uu qaban lahaa cid kale loo raadinayo xalkeeda la raadiyo oo hal la isweydiiyo dhalinyaradani maxay ku war maanta haday waxna shabaab dilo waxna qarax ku dhintaan waxna ay
badda ku dhintaan in ay gaaji awaar dhibaato jiilkani hadda uu dhamaanaya dadkan beriya u ah waayo ciday sugayaan waayo cidda dadkaan u maqan dadka laga warsugaya beri jawaabta laga helaya waa kuwe waa generation dhan oo meesha ka baxaya dhalinyarana maanta ugu waxaysan odayaashii hore wax dhamaaday iyo wax qabiil dilay iyo wax madaxiisu halaabay wey ina dhalinyaradiina hadda buufs iyo bad ku dhintaan waxna shabaab laay waxna shabaabka ay askari ka dhintaan sidoo hadda Puntland qolada tagtay oo kale ay noqdaan waxaas leeyahay waa arrin muusif aqaan aad looga xumaado waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiintooda war mas'uuliyiintooda Ilaahay uga cabsada waxa dhabta ee maanta yaala Ilaahay uga cabsada oo bal dadkan iyo dhalinyaradan qaabkii shaqo looga abuuri lahaa shaqadooda wax looga qaban lahaa ka shaqeeya qoryahan internationalka waxaan caawinaynaa leh wax noo sheeganayo xoolaha aad nasiinaysan waxba diyaarad iyo meel aad ku degtaan iyo hotel qaali ku waxayni shacabkanaga u baahan shacabkanaga hal maal geliyo oo dhalinyarada wax loo qabto way ka hadlaan waxaad maqlaysaa dhalinyarada iyo haweenka waa labada baahida iyo duruufta ugu badan waxna looga qabto waana la sheegaya international ku hanaga daayeen youth-ka iyo haweenka ay anaga dhalinyarada marba nagala hadlayaan ay leeyihiin dhalinyarada youth iyagina waxba uma qabanayaan shaqaalaha wataan dibadda kala yimaadaan wax badan qaabkaas ku noqonayaan waxay la tahay haweenkuna intaasoo nin maanta oo dhalinyaro oo dhibad hooya iyo ku agoontooda hooya asay u qaado ninkeedii yahay hooya dhashay wax ka sugaysay waa waxa ugu badan dhibaatada ku dhacay wax qabadku dhalinyarada ha galo ama gabdhaha noqdaan ama wiilasha noqdaan waan ka xumahay waan ka tacsiyeenayaa guud ahaan shirwada Soomaaliyeed iyo eheladiiba waan uga tacsiyeenayaa laakiin Allah kana magafana in la qabto dhalinyarada shaqo loo abuuro Facebook-gana waxaan u malayn aanu mana galay laakiin dadka Facebook-ga galoon bal inuu Ilaahay ka cabsado propagandada aan jirin iyo dadka waxa sawirada guriyahayda aan isku soo sawiraysaan wax ka sheegaysaan iska daayo cariishka gurigiina reerkiina ku yaala ku dhaamay ha ugu yeedhina ninka dhibka maray oo dhibka dadka kale ha ugu baaqan aad baad u mahadsantahay